wakaaladda madbacadda qaranka waxaa la aasaasay kadib markii afka Soomaaliga la qoray sanadkii 1972 xarun casri oo soo saarta buugaagta iyo xogta qoran ay noqotay wakaaladda madbacadda qaranka. horumarka iyo mudnaanta wakaaladda madbacadda qaranka waxaa lagu garan karaa inay la tartamayso wasaarado iyadoo lagu xardhay mid ka mid ah kooxaha naadiyada qaranka ee kubadda cagta oo magaceeda lagu xardhay calanka naadiga madbacadda qaranka. wakaaladda madbacadda qaranka waxay ku taalaa bartamaha magaalada Muqdisho iyadoo dhabarka ku haysa xafiiska dowladda hoose ee Xamar. wakaaladda madbacaddu xilkeedu waxa uu ahaa daabacidda ama soo saarista buugaag iyo dhammaan qoraalada loo diyaariyay hab cilmiyeysan. wakaaladdu waxay daabacday dhammaan buugaagta afka Soomaaliga ku qoran tan iyo kolkii la qoray afka Soomaaliga sanadkii 1972 laga bilaabo muddada ololaha baahinta afka Soomaaliga sida qaybtii hore ee magaalooyinka laga hirgeliyay iyo ololihii caanka noqday ee la magac baxay ololihii horumarinta reer miyiga kaasi oo socday muddo 5 sano ah. shaqaalaha madbacadda qaranku waxay isugu jireen farsamayaqaano ku xeel dheer habka dejinta qoraalada iyo maamul howlwadeenno maareeya xogaha qoran iyaga oo bixinayo dariiqa hagidda iyo daabacidda wax walba oo la horkeeno xafiiska madbacadda qaranka. tiro cadad ah oo ballaaran ayay daabacday wakaaladda madbacadda qaranka oo ahayd xarun dowladeed, waxaana wakaaladda madbacadda qaranka daabacdihii ay daabacday ka mid ahaa markii la bilaabay wax walba oo laga soo aruuriyey maanka bulshada Soomaaliyeed. xarumaha manaahijta ama xafiiska horumarinta manhajka ayaa ugu badnaa daabacadda maadaama xafiiskan mas'uul ka ah waxbarashada asaasiga ilaa dugsiyada sare. dhammaan maadooyinka dugsiyada hoose ilaa sare ayay daabacday wakaaladda madbacadda qaranka, waxaana jiray ciwaano ay ka mid yihiin afka Soomaaliga, suugaanta, taariikhda, juqraafiga, fiisigiska, kemistriga, biolojiga iyo xisaabta, iyo buugaag barayaal sare oo ka mid ahaa Jaamac Axmed naxwaha afka Soomaaliga sanadkii 1976 iyo Maxamed Xaaji Xuseen Raabi codeynta afka Soomaaliga iyo habka qoraalka labadaba oo la daabacay sanadkii 1977. ciwaanada guud ahaan waxay ka kooban yihiin qiyaastii 400 oo isugu jirta qoraallo gaagaaban sida ciwaano loogu talagalay shaqada iyo shaqaalaha ayay daabacday wakaaladda bilowgii hore. laga bilaabo sanadkii 1973 buugaag baaxad leh ayay daabacday kuwaas oo loo diyaariyay manaahijta dalka ka jirtay sida waxbarashada dadka waaweyn, habka shaqada iyo shaqaalaha wasaarad walba, iyo daabacaad u gaar ah waxbarashada asaasiga, waxbarashada dugsiyada dhexe iyo kuwa sare, tacliinta sare sida jaamacadda ummadda la foole, machadyada sida beeraha, farsamada iyo kuwa kale oo badan. dadweyne badan oo Afrika ah ama qaarado kale ah ayaan garan dadaalka Soomaaliya ku gaartay markii afkeeda qortay, taariikhdeedana baal dahab ka gashay suugaanta iyo murtida sooyaalka afka Soomaaliga. intaas waxaa ku dhan taariikhda kooban aan kaga diyaarinay wakaaladda madbacadda qaranka. haddaba la soco warbixino kale oo soo socda si aad uga bogatid taariikhda wakaaladda madbacadda qaranka. haddii aad barteena ku cusub tahay fadlan subscribe, like iyo share inaga iloobin. waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan.